afartan sano ayaa kasoo wareegtay markii koox hubeysan oo reer Sacuudi ah ay xoog kula wareegeen guud ahaan dhismaha xaramka barakeysan. haddaba macluumaadka arrintaasi ku saabsan ayaan guud ahaan barnaamijkan kaga hadli doonaa waxa laga ogaaday ilaa iyo hadda. Assalaamu calaykum, kulanti wanaagsan khiyaar ay kusoo dhawaada ha noolaato. waxaa barnaamijka marti igu ah Cabduqaadir Cashara Nadara oo ah soo saaraha barnaamijka faaqidaada ee ka baxa telefishinka Somali Cable, isla markaana maanta uu kusoo qaatay arrimo badan oo la xiriira macluumaadka arrintaasi oo ay baahisay Al Jazeera. Nadara kusoo dhawaad ha noolaato. ugu horreyn waxaan jecelahay bal inaad wax nooga sheegto macluumaadkan cusub ee la helay muxuu daaran yahay. waa tahay aad iyo aad baa u mahadsan tahay ayaan leh. waxaan sidoo kale salaamayaa daawadayaasha barta ha noolaato. runtii aniga waxaan ka mid ahay dadka aadka ugu xiran. waxaan aada u xiiseeyaa barnaamijyada qiimaha leh ee ka baxa bartaan. waana uga mahad celinayaa ayaan leh dadaalka uu ku bixiyey. waxaan rajeynayaa in dad badan ay ka faa'iideysan doonaan. haddaan usoo laabto arrinta ku saabsan macluumaadkan hadda soo baxay, runtii waxaa la leeyahay macluumaadkan wax hore loo ogaa oo ma ahayn wax cusub, maadaama sheekadu ay dhacday 40 sano ka hor oo sheeko la ogaa ay ahayd. waxaa hadda marka soo cusboonaysiiyey oo wax cusub ka dhigay waxyaabo badan oo aan looga ogeyn waagaas wixii la sheegay. wax ka cusub ayaa soo baxay iyo sida waaga xogtii loo qariyay. marka wixii la qariyay baa la soo bandhigay, marka sidii marka wax cusub ay u noqotay. marka dhacdadan waxay ahayd bishii November 1979 ama 79kii waxay ahayd bishii November. sidee wax u dhaceen? marka horta waxaa tabiyey telefishinka Al Jazeera la yiraahdo, barnaamij la yiraahdo ma khufi aadam, waxyaabaha oo la qarinayo oo uu soo bandhigaa. marka markii hore waxay yiraahdeen warbaahinta Sacuudiga waxay ka hadashay 300 oo qof inay ku dhinteen dhacdadaas oo isugu jiray dadkii meesha weerarka ka sameeyay iyo dad xujaay ah. macluumaadkaas waxaa loo gudbiyey dhammaan wadamada islaamka iyo adduunka. marka sheekadii marka sidaasay ku dhamaatay. ciidankii Sacuudigana inay iyaga hawsha soo afjareen oo ciidan kale aysan la kaashanin. marka xogtaas waxaa gudbiyey dowladda Sacuudiga. dowladda Sacuudiga ayaa markaas dadka u sheegtay. dowladihiina marka sidaasay ku qanceen. xaafadan waxay ka mid tahay xaafadaha Mamaag. guryaha waxay leeyihiin inta qayb oo guri leeyahay 4 qol iyo fadhi, 3 qol iyo fadhi, hoos waxay ku leeyihiin jimkooda, kululeysadooda. wax u dhiman ma jiraan. marka waa xaafad saatan u eg isha macallin. laakiin hadda marka waxa soo baxay waxay tahay niman wariyaal oo ka tirsan telefishinka Al Jazeera ayaa waxay tageen France, magaalo ku taal koonfurta. waxay raadiyeen nin sargaal sare oo ciidanka commandoska Faransiiska ka tirsan. ninkaas commandoska ka tirsanaa hadda waa beeshin, macnaha waa qof howlgab ah oo aan shaqaynaynin oo nin odaya ah. marka ninka waxa la yiraahdaa Paul Peller. marka Paul waxay yiraahdeen wuxuu ahaa ninkii hogaaminayay ciidamo Faransiisa oo commandos ah oo ciidanka Sacuudiga ku wehelinayay howlgalkaas in la soo afjaro. dhacdada markii ay ka dhacday Sacuudiga, boqorka Khalid ayaa markaas ahaa boqor Sacuudiga. wuxuu la soo hadlay madaxweynihii Faransiiska, wuxuu weydiistay kaalmo. aniga wasiirka arrimaha gudaha ee Sacuudiga oo booqasho ku yimid Faransiiska maalin wuxuu nagu soo booqday xero aan ciidan ku tababaray commandos. su'aal buu i weydiiyey waagaas marka dhacdadan ma dhicin. wuxuu yiri uu dhahay ciidankeena ma noo tababari kartaa, isagoo la yaabay xirfadda iyo tababarka aan sameynayno. markaas waxaan ku yiri waa ku tababari karnaa. marka sheekada marka way noo nusneed. dhacdadan markay dhacday uu boqorka soo weydiistay, maadaama wasiirka arrimaha gudaha isagu ay hoos tagayeen waxay meesha ka dhacay, baa wuxuu maqlay boqorkii inuu Faransiiska mucaawino weydiistay. marka wasiirkii wuxuu soo qoray
ninka la yidhaahdo Paul waa inuu ciidanka noo keenaa ciidamo uu hayo si ay ciidanka loo soo dirayo uga mid noqdaan marka aniga waa la ii yeeray yiri wasiirka difaaca ay yeeray Francisca wuxuu igu yiri waxaa la rabaa inaad hogaamisid ciidan meeshaas taga oo wax soo furdaamiya marka wuxuu yiri waxaan ka soo degay Riyaad aniga iyo laba nin marka Nadara muxuu qaadanayaa marka howlgalkaas maadaama xaramkii la haysto dhowr maalmood marka dagaal ka socda xaramka guud ahaan 2 isbuuc ay qaadatay sheekada laakiin isbuuc oo kale socota hadeer oo waliba warar kala duwan soo baxeen safaaradda Mareykanka oo kale waray soo saartay waxay ku leedahay Sacuudigu waxay noo sheegeen waa safaaradda Mareykanka Jidda Sacuudigu waxay markaas Jidda ku tahay safaaradda hadda Riyaad loo guuray ma ahayn marka safaaradda qoraalka ay soo saartay documentary-gu ku cad yahay waxay leedahay waa la afjaray sida ciidamada Sacuudiga noo sheegeen haddana howlgalkii uu sii socday macnaheedii nimankii wali way sii xoogeysteen ninka waxaa la dhahayay Juhayman al-Utaybi ninka ciidanka watay oo meesha galay ninka taariikh uu leeyahay wuxuu dhashay 1936 nin weyn waaye wuxuu kamid ahaa ciidankii boqor Cabdulaziz oo Sacuudiga ku mideeyay oo Sacuudiga dhan hal boqortooyo uga dhigay macnaha boqortooyadu waa la isku keenay Sacuudiga ciidankaas ku jira kadib waxa uu kamid noqday ciidanka ilaalada qaranka oo ciidan weyn ah oo Sacuudigu leeyahay marka ilaa 500 oo nin uu fakar ku shubay asaga nimankan inay qaldan yihiin reer boqor diintii dhinac mareen oo mahdigii waqtigiisii la gaaray uu soo baxay waxaas inta u sheegay ciidan ilaa 500 iyo hub meesha ku xareystay oo ciidanka dawladda ah iyadoo aan la ogeyn hal mar marka iyadoo salaad subax lagu jiro baa imaamkii mikrofoonka markii la tukaday waxaa ka qabsaday ninkii oo ciidanka watay khudbadu jeediyay ilaa 1 saac ku dhawaada wuxuu leeyahay waxaa la gaaray waqtigii mahdiga marka warbaahinta waxay leedahay ninka mahdiga uu ku magacaabayay waa seedigiis qaxtaani la yiraahdaa marka inuu waalnaa ninka inuu fiyooba iyo wali waa wax kale waa asla qoyska loo abuurtay qoyska ka carray wax kale oo sameystay ninkii marka meeshii khudbad 1 saac u jeediyay kadibna ciidankiisu waxay kureen munaaradaha oo dhaadheer ee masaajidka qoryo la koreen xaramka sheekada marka ninkii Francisca toddobaad markay socoto marka oo Sacuudiga bari waayeen oo xataa taangiyo inta ku tageen la soo gubay taangiyada la gubaa diyaarada helicoptera oo Sacuudigu ay wateen oo ay ku ilaalinayeen meesha waa la soo riday 2 miya meelahaas documentary-ga ku jirta oo nimanka munaarada ay saareen xabad kasta waa laga daalay markaas aanka nimankii sida looga saari lahaa meesha sheekada ugu weyn Sacuudiga khalkhalka galisay waxa uu leeyahay ninkan Riyaada ay midowday Riyaad markaan ka soo degay boqorka la kulmay Khalid taliyihii ciidamada iyo midowda ninkii oo Sacuudiyaanka ah wuxuu weydiiyay baqa askariyatiin markaas waxaan ku yiri hadda 3 uu ugu qoslooy ani waxaan weydiiyo dhah nimanka meesha ku jira tiradooda ii sheeg isla uu aqoon waayo ma yaqaanaan nimanka la dagaalama cadadkoodii iyo waxay yihiin ma yaqaanaan marka labadeena markii sidii aan isku fahmi weynay marka waxaan inuu horta waxaan rabnaa inaan markin oo aniga waxaan u imid iyo labada nin la socoto saraakiishan bal wixii inaan qiimayno meesha ciidanka u baahannahay hubka aan u baahannahay waxaan u baahannahay xogba ma haynay markaas waxa la ii sheegay u dhahay waxaan waa inaan soo afjirti waxa rabaan aadeen sababta maxaa waay u dhahay goboladii shiicada deganay waa kaceen waxa la bilaabay askartii dawladda in la dilo kacdoona ay isku bedelaysaa baash oo wadankii dhanaaba wuxuu galayaa khalkhal iyo khatar bas meeshii waa fiirin u dhahay meel la yiraahdo Taif aan tago dhahay Taif markaan tagay ciidamo Sacuudi oo meesha lagu diyaarinayo la tababarayo inta ku dhahay marka information-ka aan helay waxa way u dhahay ciidanka tiradooda inaan la garan laakiin ciidan xoog leh ay meesha haystaan walibana ay ku haystaan dad xujeeya ay u diideen inay ka baxaan madax furasho u haystaan dadka xujeeyda qiyaas wuxuu dhahay waxaan ku qiyaasay 5,000 ma ka yareen dadka ay meesha ku haysteen haddana waxay ku soo aaduu dhahay waqti xajkii inta dhamaaday xujeydii aysan wada noqonin oo in badan oo kamid ah ay Maka joogtay
salaadii subax marka intii joogtay in badan oo banaanka ku tukatay oo carartay mahane inta kale waa lagu qabsaday meesha qof inuu baxo loo ogolaaday ma jiro marka dhibka ugu weyn marka kaasuu ahaa nimankii marka meesha waxay sameeyeen askartii meesha aan la joogna saraakiishoodii waxay dhaheen maxaa isticmaalaysaan waxaan ku yidhi yuu dhahay meesha helicoptera kusoo maruu dhahay soo fiiriyey biyaa u baahanaa biyaha see la yeelaa biyo xaramka dhan inaan biyo ka dhigno kadibna koronto ku qabano biyaha wixii ku jira dhan korontada ay disho idinka waxaa la laaya ma dhihino ma ka naxinuu yidhi marka ayaga dadka la laynaa kama naxayaan wuxuu yidhi biyo badan ma haysanay dheheen oo macnaha xaramka lagu buuxiyo barkada baa xaramka waa sii daadanaya ninkan aada dad yaabay marka sargaalka marka wuxuu dhahay marka waayahay fikrad kana keeno yidhi gaas in lagu buufiyo meesha oo sun ah 7 tan ay dalbadeen aniga waxaan dalbaday 1 tan gaas dilaayo mase suuxinayo gaaska wuxuu sameynaa yidhi qofka wax ma arkaayo waa caburma dadka qaar wadna xanuunka iyo neefta iyo qabowga dhimanayaan in yaraa ka faka karta bis gaas sun ah waa u dhahay marka ciidamada Sacuudiga marka waxay dhaheen annaga see u tageynaa marka meesha gaaska hadii lagu buufiyo waa raacaynaa dadka aad iyo aad markaas waxaa bahal oo masaqa oo talagalay gaaska lagu xiranaa waxay dhaheen waxaa nooga daran waxaasoo dhan nimanka meesha saaran toogashay raaxada nooga qaadeen askar badan ay naga dileen baalkii ma haysatiin miya oo xabadda celinaya waa haysanaa waa kasoo dhexbaxay dheer annaga mid faransiiska sameeyaa haynaa aaway dheheen waa kana anaa wato dheh ninkii kale oo ila socda waa wateen saddexdeena waa wadaan ruuxan xabadda waa kasoo dhexbaxaysaa ma kasoo dhexbaxaysaan dhaw dheh qoryaa inta ka qaada mid ila socda geeska istaajiyaan xabad kusii daayo dheh dheg markaasay dheheen kuwaana rabnaa dheh xabaddoodii ka qaaday ninkii aan ku dhufto yiri aniga heshii waxba waa ka dusi weys marka kuwaana rabnaa dheh dalabkii koobaad horta waxaa laga gado yiri alaabtaas meeshan waa la kala shaqaysanaa ganacsi socdaa aad iyo aad marka alaabtii laga gaday alaabtii markii laga gaday geediyaa laga gaday howlgalkii marka waxay yiraahdeen waa in lasoo afjaraa waqtigay rabta ha qaadato wixii ku dhimanaha ku dhinteen wadankii gacanta ka baxay boqortooyada si fiican بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ومقعي داهر علي كلمي أنا قدومي ألفا ترست وحي أتاقنتهاي قرقاركا هويدا إدلانكا فضلا نعاوي howlgalkii ala bilaabo yiri dhag horta markii intii aan processka wixii dhan wadnay waxay qaadatay 4 maalmood u dhahay anaga howlgal ma bilaabin maalinkii 15aad oo intay meesha qabsadeen laga bilaabo aan shaqada bilaabo dhahay dadkii meesha ku jira maxay cunayaan inta waxay cunayaan maxaa ka jira say 15 maalmood meesha ku go'oonsiiyay aad iyo aad markaasaa wuxuu yiri gaaskii lagu bilaabo meesha maalinkii subaxdii aroortii 7 meelahaas aan ku bilaawno duhurkii markay 12 ka ahayd hal qof nuxsanay kuma jirin u dhahay waa dhamaaday howlgalkii waxaan la yaabo u dhahay 70 qof badbaadi aniga ma isleeno yiri suntaana qofka badbaadi karaa 70kii badbaaday waxaa ku jira u dhahay ninkii kooxda watay ajiib 70koodii waa la qabto dhahay su'aalu marka ninka ku celiyo wariyaha wuxuu yiri Sacuudigu waxay noo sheegeen 300 oo qof inay meesha ku dhimatay adiga maxaa noo sheegay ninka marka faylala u yaala gurigiisa ninkan moogta ajnabiga shaqo kasta uu qabsado wixiisu uu aad iyo faylashiisa wixiisu la soo baxay wuxuu yiri dadka meesha ku dhintay 5,000 ay ahaayeen hadaysan ka badnayn oo xujay masaakiin oo badan u dhahay aada uga naxu dhahay ma dhicin u dhahay nolosheeda intaasoo qof suuq intaas la eg saacada kooban ku dhacay weligii ma arkin waxaana loo fasaxay in gaaskaas loo isticmaalo gaaskaasaan u isticmaalno dhahay weliba wuxuu sii raaciyay waa ogaa u dhahay sunta gaaskaas 5 sano soo socotay wuxuu dhahay xaramka qofkii tawajiru ka qaaday mar loo sheegay dadkii si loo sheegay sun waa u dhahay waxaan sanooyin dhowr ah
ayay weli sii noolaan aad dhibaatadiisu jirtuu dhahay oo dadkii taga meesha waxbaa soo gaarayo dhahay waa hubaa taas waxaa iigu yaab badneed oo yidhi aniga gaaska hal tan aan dalbado dhahay sacuudiga waxay dhaheen 7 ka dhig ninkii aan u qoray oo dhahay oo faransiiska jooga wasiirkii difaaca 7 tan oo gaas aan rabaa markaan dhaho dhahay madaxu gacmaha saar ma magaalada burburinayso see wax u jiraan oo dhahay maalinta markaasuu wuxuu yidhi waa u baahanaa nimankaana dalbanayo wuxuu igu yiri oo dhahay aniga 7 tan ma saxiixa oo dad oo masaakiina lagu leeyahay suuqyada fiirinta leegtahay adiga mas'uuliyadeeda qaado inuu dhahay kaasana ani ma qaadayo ilaa madaxweynaha uu soo dhaxgalo yiri uu yiraahdo hala sii sacuudiga ciidankoodu waxay sheegeen inay iyaga soo afjareen iyagoo ka ordaya waagaas waxaa jira dowlado awood leh turkiga bakistan dowlado ciidamo fiican haysta jira muslimiin oo sacuudiga ciidankiisu hadduu tabar daran yahay iyaga caawini karay oo badbaadin karay xaramka way diideen waxay yiraahdeen annaga hawshii soo afjarnay oo soo gabagabeynay ciidankeena yaa sameeyay marka adiga waxaa leeyahay ma noo xaqiijin kartaa waxaa jira markii maka la galayo dadka aan diinta muslimka haysan inaysan gudbi karin xaramka iskaba dhaaf xaramka inaad tagtay oo aad kasoo shaqaysay oo howlgalkan hogaamisay adigii ciidankaaga ma noo cadeyn kartaa wuxuu leeyahay haa muslim ma aheedaa leey diin yaaba i weydiiyo dhaani wax diin weydiiyo cajiib oo diinna weydiiyey ma jirin ciidankayga gudaha iyo banaankaba waa joognoo dhahay daakhilka iyo khaarijkaba waa joognoo dhahay howlgalka waa weyn sheekadaas marka waxay noqotay ama kaaga noqotay marka waxaa la yidhi sababta ay u qariyeen faransiiska iyo sacuudiga muddada intaas la eg 40 sano xasuuqaas weyn oo dhacay dad badanaa ilaa hadda la laayahay xajki si uu aada sooma noqonaa la taagan nugta 5,000 number yar ma tira yar ma oo adduunka dhan ka timid qof walba uu ka samray dadkiis markaasa wuxuu yiri sababta loo qariyo aan ogahay yiri faransiisku wuxuu ku bedeshay oo dhahay heshiisiyo hub looga gadanaa 2 sano oo joogto ah sacuudiga lacag uu keenaa hubaa loo raraa macnaha businesskaas uu ku bedeshay faransiiska marka sheekadaas marka aaday waxay u noqotay sheeko la yaab leh dadkii dhan ay ku amakaagaan waxa dhacay marka waxaa la isweydiinaa marka sacuudiga iyo faransiiska weli kama jawaabin haddayse maalmaha soo socda ka hadla marka way soo bandhigida arrintan waxaa kaloo jirtay arrin dhacdo kaloo ka dambeysay oo 87 bishii Juulaay ka dhacday xaramka oo koox Shiica ay iyaduna ay galeen gudaha xaramka ay dad badan afduub ku qabsadeen taas waxaa la sheegaa lafteeda in 400 oo qof ay ku dhinteen marka tan kale oo 87 dhacday lafteeda marka macluumaadka la hayo waxa laga yaabaa inay u baahan tahay in aad loo baaro ay taas laftirkeeda ilaa hadda xogta la hayo wixii sacuudiga sheegay way mogtahay aad iyo aad wali baaritaan kale laguma sameeyo marka tana hadda argagax gelisay dunida islaamka oo dhan fadeexad weyn ay ku noqotay sacuudigii marka waxaa lala yaaban yahay waxa intaas la eg ee dhacay iyo sida loo qariyay 40 sano kadib waxaan mogtahay bini aadamkan Soomaalidu waxay tiraahdaa mogtahay ilaahay ayabtaa geeko hoo qari geelamaad ma ka daraab macnaha ilaahay ayabtaada hal maalin hadduu qariyo macnaheedu maalin labaad ma ku daro way soo baxeen macnaha waxaa laga wadaa ceeb mar walba ma sii qarsanaanayso wax walboo dhaca 40 sana kasoo wareegato 50 sana kasoo wareegato 100 sana maalin waa la ogaanaa marka ceebta xataa waxay ka wadaan oo kale ceeb kaliya maahane takanada iyo godobta iyo wax kasta ma qarsama oo dhibaato way soo baxayaan marka barnaamijkaasaan waxaan ku soo qaadanay maanta barnaamijka faaqidaada adduunkan ku soo qaatay runtii barnaamij wuxuu ahaa dee wax cusub ay ahaayeen oo macnaha TV-gaas Al Jazeera isaga laftirkiisa markii hore waxaan isku taxluujin jirin inaad isweydiiyo waa mogtahay Al Jazeera hadda muxuu u sameeyay sheekada waxaan mogtahay waxyaabo waxaa jira marba waxba soo ahaday waa ogtahay Qatar iyo Sacuudiga meel xun ay ka maraysaa
marka hadda malafka waxa la baaraya markii hore saaxiibaa la ahaa waxaa la ahaa dad walaalaa oo khaliijiyiina wixii waaweyn oo saas oo kaloo dhaca waa la is asturi jiray inkastoo warbaahinta waa madax banaanta la dhaha laakiin danta ma laysku xadgudba moogta laakiin hadda wax laysu reebanaa ma jirto male waa la kala tegay qoladan tv-yadan uu iska leeyahay sacuudigana waxay rabaan ay ka sheegaan qoladan haddayba soo helaan wax oo khatar ku ah iyagana waa ka helaan miis maxay noqon doonaa marka cawaaqibka arrintan ka dhasha wallaahi cawaaqib kaloo gooniya ma dhalana laakiin sumcad xumo weyna qoyska boqortooyada arrintan kasoo gaaraysa eheladii dadkii waxaa bilaaban doonaa dowlado badan dadka hadda la waayo waxaa ugu badnaa la heliyey indonesia iyo dowladahan kale oo muslimiinta dad badana uga dhintay marka waxaa laga yaabaa kiiskan in dib loo soo nooleeyo oo qaarkood magdhow gaaro iyo arrintan caddaato maxkamad la furo oo dadkii ehladoodii ay yidhaahdaan muxuu ahaa dadkeenii inta suntaas lagu laayay haddana muxuu ahaa dowladaha ugu weyn damageka soo gaaraya sacuudiga faransiiskuna asagaa qeyb ka noqdo aad iyo aad baad umahadsan tahay cabdiqaadir cashar nadaar ayuu ahaa oo barnaamijka ha noolaato saaka marti noogu ahaa waxaan kaga hadlaynay 40 sano ka hor weerarkii lagu qaaday xaramka oo koox baysan ay qabsadeen waxaana halkaasi la sheegay in dad fara badan ay ku dhinteen guud ahaan barnaamijkan inta ayuu saaka ku dhan yahay intaynu mar kale kulmi doono waxaan hadduu allah awoodaleedu ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nadaar waa mahadsantahay Soomaalida u hiilisay ha noolaato